الله الرحمن الرحيم كسو هذا شبكة sologroups.com laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxo luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa ICT security qaabkee shabakad hawada looga saari karaa marka waa cashar muhiim ah isla markaana ah educational purposes ama waxbarashada qaabkeeda haddii tabcan shabakad qof uu leeyahay ama shirkad ay leedahay ay istiraahdiid hawada ka saar sharciga wadanka aad ku nooshahay ayaa lagula tiigsanaya marka qaabka un baro sida looga hortago baro isla markaana iska ilaali sharciga inaad jabisid waxaan isticmaalaynaa script la yiraahdo Xerxes iyo Kali Linux 2 qaabka looga saaro shabakad hawada way kala duwan tahay waxa loo isticmaalaa wax la yiraahdo ghost computers ama kombiyuutar aad u fara badan marka haddii aad doonaysid shabakad inaad hawada ka saartid ma doonaysid isla markaa in lagu ogaado saa awgeeda kombiyuutarkaaga caadiga ah ee gurigaaga ama xafiiskaaga ku yaala lama isticmaalo waxa la isticmaalaa kombiyuutar malware inta loo diro si ghost ah ama si nooc kale oo kala duwan ah looga isticmaali karo saas awgeed casharkan waxaanu isticmaalayaa VMware Workstation oo Kali Linux ku duuban tahay isla markaana waxaan isticmaalayaa ghost computers oo ilaa iyo 20 ah isla markaana aanu ku jirin casharka sababtoo ah ma doonayo A to Z inaan sameeyo laakiin functionka ama siduu u shaqeeyo ee principle-ka ama siduu yahay qaabka shabakad hawada looga saaro si toos ah ayaanu arki doonaa inagoo tijaabo ku samayno shabakad online ah oo live ah isla markaana hawada si toos aan uga saarno sida caadada ah waxaan isticmaalnaa Kali Linux 2 ayaanu isticmaalaynaa oo virtual PC ah si aan u samayno DDoS oo ah denial of service qaabka u shaqeeyo denial of service waa in shabakadii heli jirtay asbuucii ama maalintii heli jirtay ilaa iyo 1000 qof inay galaan haddii la weydiiyo 500 kun qofood ay soo weydiiyaan tabcan serverka hadduu yahay dedicated ama share hadduu yahay ma xamili karo saa awgeed ayuu hawada si toos uga baxaya marka waxaanu isticmaalnaa sanad ku sheegay kombiyuutar fara badan laakiin casharka kan idin ku tusayaa isla markaana ghost ayaan same time isla waqtigaas isticmaalaya oo aan casharka aan ku soo darin si maaragtay si qaldan loogu takrifalin ama loo isticmaalin marka waxaan isticmaalaynaa sanad ku sheegay Xerxes script ayaan isticmaalaynaa waxaan aadayaa dhanka iyo Firefox ayaan aadayaa shabakadeeni GitHub oo ah shabakada ugu muhiimsan ayaa waxaan ku qorayaa GitHub software waxa la yiraahdaa Xerxes ayaa laga soo gaabiyay kadibna kan ugu horeeya ee dusha yaala ayaan saan u riixayaa markii uu furmo waxaan leeyahay clone oo download ayaan leeyahay a clone with https oo halkan ayaa dushiisa ayaan tagayaa madow ayuu noqonayaa right click ayaan leeyahay copy ayaan ku samaynayaa marka kan minimize ayaan leeyahay kadib waxaan furayaa command prompt ayaan furayaa waxaan ku qorayaa git clone ayaan leeyahay kadibna waan ka sikanayaa right click waxaan leeyahay oo paste aan leeyahay kii hadda aan ka soo copy aan kaga soo sameynay git hub aan kaga soo sameynay waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay clone ayuu ku sameynayaa counting connectivity wax walba 100% waa okay haddii aan tago place haddii aan tago home haddii aan tago waxaan ku arkaa Xerxes inay halkan soo gashay labadan file ayaan isticmaalaynaa oo aan u baahanahay mustaqbalka waxaan leeyahay kadib halkan clear ayaan leeyahay waxaan halkan ku qorayaa cd waan ka sikanayaa Xerxes ayaan ku qorayaa enter ayaan leeyahay isaga ayaa sidan u soo baxay kadibna waxaan leeyahay ls oo na tusaya waxa ku jira kuwii hadda oo ahaa readme iyo xerxes.sc ayaa halkan ku soo baxay kadibna halkan waxaan ku qorayaa gcc ayaan ku qorayaa waan ka sikanayaa Xerxes oo sidan ah ayaan ku qorayaa .sc oo ka yimid halkan ka yimid kan ayaan soo qaadnay kaliya gcc xerxes.c ayaan ku qorayaa kadibna waxaan sameynayaa waan ka sikanayaa -o ayaan leeyahay -o waxa ku sii xigaya Xerxes marka ayaa ku xigta waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay kan ayuu halkan ii soo dhigaya marka kadib markuu saan u yimaado waxaan leeyahay ls ayaan leeyahay enter wuxuu ii soo saarayaa markan saa ku aragtaan meesha ugu dambeysay readme xerxes.c ayuu saan igu soo saarayaa halkan ayaan ku laabanayaa isla meeshii ii furnayd labada file kan uma baahni waxaan leeyahay right click move to basket kanna uma baahni right click to move to basket kan kaliya ayaa noo soo horay kan ayaanu isticmaalaynaa oo aan u baahanahay iminka waxaan aadayaa shabakadan muhiimka ah ee la yiraahdo is it down right now
shabakadan hawada ma ka baxsan tahay wuxuu kuu sheegayaa shabaka walba oo hawada ka baxsan marka waa inaan ku tijaabinaa oon eegnaa shabakada aan doonayno in aan hawada ka saarno tabcan waan qarinaya waxaan ku qorayaa www waxaan ku qorayaa .com ayay ku dhamaanaysaa shabakada halkan ay ku qoran tahay tabcan laakiin lama arkayo ma doonayo in ardayda qaarkood ay hawada ka saaraan shabakadan marka halkan ay ku qoran tahay .com ayaa ugu dambaysa waxaan leeyahay check ayaan leeyahay wuu eegayaa wax yar kadib wuxuu soo saarayaa shabakadii inay online tahay ama offline tahay saa ku aragtaan waad ujeedaa is up ayaan aragnaa inta kale waan qariyey halkanna waan qariyey looma jeedo waxay leedahay is up ama hawada ayay ku jirtaa marka qaabkan uga saarnaa qaabkan uga saarayna aad ayay u fududahay waxaan copy ku samaynayaa slash shabakadan ayaan copy ku samaynayaa waxaan aadayaa dhankii iyo scriptigii ii furna ayaan aadayaa halkan markaan imaado waxaan qorayaa ./backward services ayaan u qorayaa waan ka sikanayaa iminka shabakadii ayaan ku darayaa www copy iyo paste ayaan ku sameeyay laakiin caadi ahaan ayaan u qorayaa ayaa ka bilaabataa .com kadibna waan ka sikanayaa waxaan ku qorayaa albaabka ama portiga laga soo galo ayaan ku qorayaa marka tabcan soo idin kugu sheegay goes to computersna same time isla waqtigan ayaan isticmaalayaa idinkana shabakad hawada ku jirto qof uu leeyahay lama baahna in hawada laga saaro markuu saan yiraahdo enter ayaan leeyahay isla markii wuxuu u dirayaa saad ku aragtaan shabakadii intaasoo request ayuu u dirayaa oo ah awal waxaa laga yaabaa shabakad inay soo jirtay maalintii dhowr boqol qofood intaasoo kun ayuu si automatic ah ugu dirayaa marka waxaan sugnaaba waa muddo ka yar 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo waxaana hubaal ah in shabakada si toos ah ay hawada uga baxayso marka waa sugaynaa oon kusoo laabanayna marka dhowr daqiiqo ayay ku socotay bal aan eegno dhankii iyo firefoxka danoo furnaa shabakadii iminka refresh ayaan ka dhigayaa aan eegno inay wax isbedelayaan refresh hadii aan idhaahdo wuu eegayaa wax yar ayuu eegayaa checking in shabakadaas ay hawada ku jirtay in kale weli wuu eegayaa sidaan ku aragno checking ayuu leeyahay shabakada waad ujeedaa shabakada is down ama hawada ayay ka baxday iminka xilligii uu ku socdo kan waa 2 daqiiqo ka hor no response ayuu leeyahay marka isla waqtiga isagoo sidan ah waxaan samaynaynaa si toos ah ayaan shabakada waxaan u qoraynaa browserka ayaan u qoraynaa si aan u xaqiijino ama aan u hubino waxaan leeyahay copy halkan ayaan ku qorayaa enter ayaan leeyahay waad aragtaa shabakada.com ka ahayd oo inta kala qarsan wuxuu isku dayay inuu ku xirmo uu raadinayaa waxaana hubaala intan hadduu sidan yahay in shabakadii gebi ahaan hawada ay ka baxday oo qaabkana isagoo isla isticmaalay tabcan kaliya ma isticmaalin 2 daqiiqo ma isticmaalin computerkan ka Linux kuwa kale oo computer kale ayaan la isticmaalay si ay hal mar ugu diraan intaasoo kun oo request ama weydiin ay ugu diraan marka DDoS-ka ama denial of service wuxuu u shaqeeyaa qaabka ah in request aad u fara badan serverka lagu weydiiyo ama wax laga codsado marka codsigaas haddii intaasoo 100 oo kun ay soo weydiiyaan ma shaqeynayo hawada ayuu ka baxaya sababtoo ah ma xamili karo marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa